Isimada dhaqanka ee Puntland gaar ahaan gobolada Sool iyo Nugaal xubno ka soo jeeda ayaa 24 saac la soo dhaafay ku hawlanaa sida ay u dhexdhexaadin lahaayeen una soo afjar lahaayeen khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Cilmi Cismaan Karaash. Khilaafka labada mas'uul waxa uu soo taxnaatay bishii Febraayo ee sanadkii 2019 laakiin waxa uu xoogaystay maalmihii iyo bilihii ugu dambeeyay markii labada dhinac ay isku afgaran waayeen isku shaandhayn xubnaha golaha wasiirada taliyaal ciidan iyo la tashi la'aan ka dhaxaysa. Isimadu dadaalkooda waxay bilaabeen markii gudoomiyaha baarlamaanka ee Puntland uu arrintan ugu tagay sida xal waara ay uga gaari lahaayeen. Gudoomiyuhu waxa uu u sheegay xilligaas isimada inay haba yaraatee waxba xal ka gaari waayeen gudoonka goluhu labada dhinacba oo ay la kulmeen. Waxaana uu sheegay in doorka isimada ay tahay inay qaataan oo loo baahan yahay. Inkastoo isimadu markii hore ay diideen inay arrinta gudoomiyuhu ugu tagay ay falcelin toos ah ka bixiyaan, haddana waxay ku eedeeyeen baarlamaanku inay yihiin kuwa aan go'aan rasmi ah gaari karin, isla markaana sharciyada dalka ay haystaan ay tahay mid ay doonayaan inay ku maamushaan sida iyagu ay jecel yihiin. Isimadu waxay bilaabeen dadaal xoog leh oo ku wajahan sidii labada dhinac ee kale ee sheeganaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay isugu keeni lahaayeen ka horna ay u ogaan lahaayeen daraf kasta waxa uu tabanayo. Kulan hordhaca ayaa dhex maray isimada kaas oo ay uga wada hadleen waxyaabaha muhiimka ah ee ay tahay dhinaca gudahooda inay ka wada hadlaan. Waxaana dhinacyada kala duwan isku daya ay sameeyeen khilaafka labada dhinacba ay ku guuleysteen xarunta baarlamaanka ay maanta kula kulmaan madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyadoo ay goobta fadhiyaan gudoonka baarlamaanka. Inkastoo aan si dhab loo ogeyn natiijooyinka rasmiga ee kulanka maadaama warbaahintu dibadjoog ka ahayd, haddana xogta kulanka ka soo baxday waxay sheegayaan in markii hore qorshuhu ahaa in labada dhinacba kulanka la isugu keeno, laakiin madaxweynaha Puntland uu ka cudud daartay inuu kulanka ka qayb galo oo uu dalbaday inuu berrito si gaar ah isimada ay isu arkaan doodiisana loo dhageysto. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa kulanka ka qayb galay isla markaana ka jeediyay tabashooyinka uu qabo. Ka qaybgalayaasha kulanka qaarkood oo diiday adeegsiga magacooda waxa ay xaqiijiyeen in kulanka labada dhinacba ay ka wada hadleen arrimaha ku saabsan waxa uu tabanayo madaxweyne ku-xigeenka. Axmed Karaash wuxuu aqbalay wada hadal iyo wada xaajood dhexmara isaga iyo madaxweyne Dani. Waxa kale oo soo jeediyay tabashooyinkiisa ku aadan tixgelin la'aan, la tashi la'aan iyo qodobo dastuuri ah oo ay ka mid yihiin awoodaha madaxweyne ku-xigeenka oo la jabiyay. Wuxuuna madaxweynaha ku eedeeyay inuu si shakhsi ah marar badan u magacaawdo xilal kala duwan, kuwa la sheego iyo kuwa aan la sheeginba. Marar badan oo arrinta ay ka wada hadleenna madaxweynuhu uu sheegay inuu isagu dalka madaxweyne ka yahay, la tashina uu madaxweyne ku-xigeenka u ogol yahay oo kaliya uusan ku khasbanayn qaadashada go'aanka iyo taladiisa midna. Kulanka ka dhacay xarunta baarlamaanka oo soo gabagabay wax yar ka hor salaadii maqrib ayaa waxyaabaha la isku afgartay waxaa ka mid ah in soo jeedinta madaxweyne Karaash kadib kulanka madaxweyne Dani iyo isimada la dhageysto. Intaas wixii ka dambeeyana isimadu ay go'aan gaaraan. Warar kale ayaa jira oo ilaa hadda aan la xaqiijin oo sheegaya in qodobada sharciga ay isimadu u soo jeediyeen in xubno ka mid ah guddiga baarlamaanka arrintan si dastuuriyan ay u soo eegaan. Laakiin warar kala duwan oo aan helnay waxay sheegayaan in dhinacyadu aysan ku wada qanacsanayn in gudoonku ay arrinta sharci ahaan u galaan, gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenka oo xubnaha xagga sharciga loogu diray ee baarlamaanka ku jiri karaaba ay u muuqan karaan kuwa garab kale la safan kara. Isimadu hadda waxay qaadanayaan doorka maxkamadda sare ee Puntland 23 sano kadib dhismihii Puntland. Ma jirto maxkamad dastuuri ah taasoo maanta qaadi lahayd eedaha labada dhinac ay isdhaafsanayaan. Waxaa la filayaa in maalmaha soo socda dhinac xal looga gaaro arrinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka.